eedo nabigeena sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisu wuu caawin jiray shaqada guriga idilna wuu ka qaban jiray anaga haddaan Soomaali nahay waxaan aaminsanahay rag inaysan cunto karsan karin shaaxna aysan karsan karin waxna aysan qabsan karin taasna waxay ku imaad inaan isku qaladno diinta islaamka iyo dhaqanka anaga aan leenahay haddaan Soomaali nahay labadaasna waa laba wax oo kala duwan ina sidaas u fahantidaa ay jeclahay tani waa Muniish Mustafa ama Muna Mustafa waxay saacado ka hor ku geeriyootay highway-ga u dhaxeeya wadada Nairobi iyo gobolka Naivasha dadkii taageerayaasheeda ahaa oo dhan Muniish Mustafa waa geeriyootay waxayna aaday meeshii loo badnaa geerideeda dad badan ayaa aad iyo aad u argagaxay baraha bulshadana ayay qabsatay saacadihii la soo dhaafay waxaa kaloo la geeriyooday wiil kale oo gaariga la saarnaa oo lagu magacaabo Zakariye asaga xog badan lagama hayo walow uu ka tirsanaa dhalinyarada magaaladaasi Nairobi ee baraha bulshada caanka ka ah inkastoo aan si aadaba loo aqoonin taariikhda nololeedkiisa laakiin Muniisha waxay ahayd gabar wariye ah aktarad ah jilaa kuna fiican riwaayadaha wacdiga ah ama waanada ku saabsan ay soo bandhigi jireen kooxdeeda Somali React Muniish ifka mar dambe lagu arki doono murada ay ka tirsaneed ee Somali React ayaa ahaa koox ummadda dhalinyarada Soomaaliyeed ku waaniya wanaaga xumaantana ka reeba laakiin u matala qaab jiliin ahaana waxayna ku tarjumi jireen luqadaha Ingiriiska iyo Soomaaliga iyo mararka qaar xitaa Kiswahiliga waxayna ahayd ayna ku soo caabaxday Muniish Mustafa riwaayadahaasi eedo nabigeena sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisu wuu caawin jiray shaqada guriga idilna wuu ka qaban jiray anaga haddaan Soomaali nahay waxaan aaminsanahay rag inaysan cunto karsan karin shaaxna aysan karsan karin waxna aysan qabsan karin taasna waxay ku imaad inaan isku qaladno diinta islaamka iyo dhaqanka anaga aan leenahay haddaan Soomaali nahay labadaasna waa laba wax oo kala duwan ina sidaas u fahantidaa ay jeclahay waa kana wiil goobjoog ahaa oo la socday Muniish iyo Zakariye markii ay ku dhimanayeen highway-ga u dhaxeeya wadada lagu magacaabo Naivasha highway إنه أكسيدنت قاله ما نقولين مركب مشتم جاري جاري ونقطة هدي لسيدو كجاري فولا فول كل جاري وين فولا تكمل رقم جاري يروح فولا على سيدو كعمر كده ملوجا إنه قبل ولا شيء يويل ولا الكين إنه كل جاري هذا واحد كلامنا الشيء أكسيدنت وزايدية جاري يروح فولا جاري وين جاري جارنا استحق لين ساسنا مسحق الجنكر أي كل حجر وجارياش الكلام اللي عطينا waxaynu ka cudurdaaranayna inayna soo bandhigi karin muuqaalka dhabta ah ee la duubay iyagoo gaarigooda gaari kale uu ku burburay labada wada gaarina ay wadada ka dhaceen Muniish saaka iyadoo faraxsan ayay gurigeeda ka baxday waxayna rajaynaysay inay soo noqoto ay ku soo noqoto gurigeeda iyadoo nabad qabta arrinka kale Muniish waxay guursatay midhow 18 November sanadkii 2020 waxay guursatay muddo laga joogo bil iyo dhowr bari waxayna ku soo bandhigtay arrinkaasi guurkeeda barteeda Facebook ay ugu qoran tahay Muniish Mustafa wiilka ay guursadayna waa wiilkan sawirkiisa idiin muuqda wiilkan dhalinyarada waxaan leenahay sabir iyo iimaan Allah ka siiyo xaaskaaga oo ku geeriyootay shilka maantay awada waxay u tahay gobol madow dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya gaar ahaan xaafadda Islii iyo dhalinyarada isku kooxda aan bahwadaaga ahaayeen ee qaarkood YouTuberada iyo TikTok gacaanka ka ahaa ee xaafadda Islii magaaladaasi Nairobi